Ethiopia. Ciidamada militariga ee dowladda Ethiopia ayaa gudaha u soo galay xadka ay la wadaagaan Soomaaliya in ka badan dhowr iyo 30 kiiloomitir. Subaxii hore ee saaka ayaa cutubyo ka tirsan ciidamada militariga ee dowladda Ethiopia ee xadka Soomaaliya ku soo gudbeen gaar ahaan deegaanka Feerfeer ayagoo in ka badan 3 fadhiisin ka samaystay deegaanada Bacda iyo sidoo kale Qamno. Deegaanadan ayaa hoos taga degmada Martabaan ee gobolka Hiiraan. waa markii labaad ee sidoo kale ciidamada dowladda Ethiopia ay muddo 2 bilood gudaha u soo galaan xuduudda Soomaaliya iyagoo wax amar ka haysan dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya. iyadoo la ogsoon in ciidamada Ethiopia ay qayb ka yihiin howlgalka la dagaalanka ururka Al-Shabaab ee ATMIS. haddana ciidamada xilligan gudaha u soo galaya xuduudda Soomaaliya isla markaasina ka soo gudbaya soodinta u dhaxaysa labada dal maaha kuwa ka tirsan howlgalka ATMIS guud ahaanba. sidaan hore soo sheegnay Ethiopia mar hore ayay gudaha u soo gashay si amar la'aan xuduudda Soomaaliya isla markaasina ay sheegtay inay baacsanayso xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab oo isku dayay inay gudaha u soo galaan xuduudda Ethiopia isla markaasina halkaas ay dib uga laabteen. tani waa markii labaad ee dowladda Ethiopia si amar la'aan u soo galayso xuduudda ay la wadaagto Soomaaliya isla markaasina iyadoo dowladda dhexe ee Soomaaliya aan wax amar ka haysan ay fadhiisna ka samaysnayso deegaano ay leeyihiin Soomaaliya. dowladda dhexe ee Soomaaliya tan iyo hadda wax hadal kamay soo saarin ciidamadan gudaha u soo galay xuduudda iyadoo la ogsoon yahay inay xilligan ismaandhaafsan yihiin dowladaha Ethiopia iyo Soomaaliya sidoo kalena ay ka dhaxayso xurguf adag taasi oo ku salaysan heshiiska Ethiopia ee la saxeexatay xukuumadda Somaliland ee xilligan uu hogaaminayo Muuse Biixi Cabdi. Ethiopia iyo Soomaaliya xilligan waxa ka dhaxeeya xurguf adag si oo gaadhay heer inay kala qaataan safaaradaha sidoo kalena ay kala kaxaystaan labada safiir ee u kala joogay Addis Ababa iyo Muqdisho. dowladda Ethiopia ayaa tan la oran karaa waa daandaansi daleed ay doonayso xilligan inay daandaansato dowladda federaalka ee Soomaaliya. sidoo kale dhawaan ay ahayd markii deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud uu ka soo galay hub sharci darro ah kaasi oo la sheegay in dowladda Ethiopia ay doonaysay inay ku carqaladayso cunaqabatayn tuubka laga qaaday dowladda federaalka ee Soomaaliya isla markaasina ay beesha caalamka u muujiso inaanay xilligan dowladda dhexe ee Soomaaliya guud ahaanba qaadi karin mas'uuliyadda hubeed oo looga qaaday cunaqabataynta. dowladda Ethiopia ayaa xilligan ku dadaalaysa sidii ay dowladda federaalka ee Soomaaliya u carqaladayn lahayd isla markaasina ay ugu diri lahayd beesha caalamka aanay ugu muujin lahayd hab ah dowladda Soomaaliya inaanay guud ahaanba qaadi karin mas'uuliyad hubeed mid daleed iyo mid dhuleed toona. intaasi dowladda Ethiopia waxay ku sii darsatay xilligan inay soo qaado duulaan cad oo ah inay ciidamadeeda si toos ah uga soo geliso xuduudaha ay la wadaagto Soomaaliya iyadoo wax amar aan ka haysan dowladda Soomaaliya.